السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي قيمة يقدرين تمودنا ومالين مسألة ساعة جون طبنتا إلا بدا كوني شاني إلا باتنك قضبدا وركان إذن كاينو وحاكمدا قبل كسيتي إنك بدن كوني تدوب قولو أرضي أياو فريسة امتحان كشهادة فصل كسيديداد sidoo kale waxa imtixaankan shahaadiga fasalka 8aad u fariistay 276 maxbuus oo ku jira xarumaha dhaqan celinta deegaanka warbixinteena sidoo kale waxaan ku soo qaadanaynaa caasimadda dalka Djibouti iyo horumarka ballaaran ee ka jira iyadoo ku soo beegantay xilli loo diyaar galoobayo xuska xorriyadda dalkaasi ka soo wareegtay intaasi akhyaaray waa qodobada wararkeena haatanna ku soo dhawaada iyagii oo fidsan aan ku bilaabay gobolka City imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2017 waa tirsiga taariikhda Itoobiya waxaa si rasmi ah uga furmay magaalada Shinile xarunta gobolka City imtixaankan waxaa si rasmi ah u daafuray gudoomiyaha gobolka City mudane Ibrahim Hussein Khayre weelinaya madaxa arrimaha siyaasadda ee xisbiga barwaaqo laantiisa gobolka City mudane Hussein Aadan iyo mas'uuliyiinta degmada Shinile ugu horeeya gudoomiyaha degmada Shinile baahda waxbarashada gobolka iyo sidoo kale degmada Shinile waxaana imtixaankaasi sidoo kale dhammaan degmooyinka gobolka City ay si wada jir uga furmeen marka laga reebo degmada Dhuunyar waxaana imtixaankaasi guudaan qaadanaya arday ka badan 1770 arday oo u fariistay imtixaankan shahaadiga fasalka 8aad sidoo kale waxaa deegaanka imtixaankaasi ayuu si rasmi ah uga furmay guud ahaan gobolada deegaanka iyadoo sidoo kalena imtixaankan guud ahaan ay ku jiraan ardayda u fariisatay 276 maxbuus oo ku jira xarumaha dhaqan celinta deegaanka komishineer ku-xigeenka komishinka booliska asluubta sareeyo guud Miir Cabdi ayaa xabsiga dhaqan celinta deegaanka ka daafuray imtixaankan shahaadiga fasalka 8aad oo ay u fadhiisteen 74 maxbuus komishineer ku-xigeenka ayaa sheegay in isbedelkii ka dhacay deegaanka ay fursad u abuurtay maxaabiista taasi oo u saamaxaysa inay helaan fursado waxbarasho oo ay sii wadan karaan sidoo kale wararka deegaankana waxaa imtixaanka laga daafuray magaalada Jigjiga warkaasi oo faahfaahsan aanu talowno in ka badan 35 oo arday ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanka fasalka 8aad ee dawlad deegaanka Soomaalida wasiirka xafiiska madaxweynaha ee dawlad deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim ahna kusimaha madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida iyo wasiirka xafiiska waxbarashada dawlad deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Sheekh Aadan ayaa si rasmi ah maanta u furay imtixaanka fasalka 8aad oo ay u fadhiisanayaan in ka badan 35 oo arday guud ahaan deegaanka mudane Maxamed Sheekh Aadan wasiirka xafiiska waxbarashada dawlad deegaanka Soomaalida ayaana tilmaamay in meel fiican uu marayo dagaalada ay xukuumaddu ugu jirto tayeenta waxbarashada lana qorsheeyay in jiilka mustaqbalku ay noqdaan kuwa ku dhisan aqoon iyo xirfad bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta si rasmi ah u furay imtixaanka galaaska 8aadka oo ka dhacay guud ahaan deegaankeena dhammaan magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanku ka kooban yahay waxaa u fadhiisanaya 35127 arday imtixaankan waxaa lagu qabanayaa xarumaha degmooyinka iyo magaalooyinka laakiin laguma qabanayo iskuuladii ay ardaydu ku dhiganayeen arintaana waxaa loo yeelay si loola dagaalamo qishka iyo wax isdabamarinta imtixaanka isla markaana kor loogu qaado tayada imtixaanka waxaa guud ahaan laga shaqeynayay diyaar garowgiisa muddooyinkii ugu dambeeyay diyaar garow aad iyo aad u ballaaran baa laga sameeyay goobaha lagu qaadayo imtixaanka geyntii goobaha loogu talagalay ilaalinta amniga imtixaanka iyo sidoo kale wacyigelinta ardada iyo waalidiinta si ay ugu diyaar garoobaan imtixaanka qaaditaankiisa runtii dadaalkaasi waxa uu keenay maanta si habsami leh inuu deegaanka uga qabsoomo dhanka kale waxaa iyadana maanta ku howlahan imtixaanka dhammaan magaalooyinka iyo degmooyinka iyo gobolada iyagoo mas'uuliyiintu u dhaadhaceen goobaha imtixaanka lagu qaadayo oo ay kormeerayaan geedi socodka imtixaanka waxaa sidoo kale kaalin weyn oo mugla ka qaadanaya hay'adaheena amniga oo runtii kaydinta imtixaanka goobo ku habboon in la dhigo
goobaha imtixaanka in amnigooda si heer sare ah loo ilaaliyo dadaal badan bay hay'adaha amniguna ay ka sameynayaan waxaan rajaynaynaa inuu ku soo dhamaado si nabadgelyo ah iyo waliba nidaamkii loogu talagalay maanta iyo baribu imtixaankani socon doona insha Allah ta'ala wuxuu u noqonayaa imtixaankani tusaale dadaalka ay xukuumaddu ku jirto sidii loo heli lahaa arday tayo waxbarasho leh isla markaana loola dagaalami lahaa qishkii lugooyada ahaa ilmuhu isagoon waxba baranin lagu baasinayay isla markaana mustaqbalkiisa lagu haleynayay waxaan rabnaa caruur la hubo oo tayadooda la hubo inaan soo saaro mustaqbalka ummadan iyo jiilka maartay soo socda in ay noqdaan kuwo aqoontoodu tahay mid dhab ah oo lagu tiirsanaan karo laakiin ayna ahayn mid ay ku heleen nidaam aan sax ahayn iyo qish iyo wax isdabamarin taasoo runtii baabi'inaysa mustaqbalka iyo aayaha bulshadeena waana dadaal aad iyo aad u ballaaran waana wax lagu faani karo waxaan rabnaa mustaqbalkan inaan sii xoojino insha Allah ta'ala wararka naga soo gaaraya dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxay noo ay wariye Cabdiqaadir ayaa warbixin kooban ka diyaariyay isbedelka ka jira caasimadda Djibouti iyo diyaar galowga munaasabada loogu dalbaadagayo xorriyadda ka soo wareegtay 48 guurada dalkaasi tan waa caasimadda Djibouti waxa isa soo taraya isla markaasina muuqda horumar laga sameeyay dhanka dhismaha iyo hirgelinta mashaariic waaweyn oo seeska iyo saqafka sare wada simada Soomaaliyeed sanadihii dambe waxa aad moodaa in salka loo dhigay sidii loo qurxin lahaa magaalo madaxda iyadoo oo subaxdii markii aasi qumaati ah hurdada uga toosto aad arkayso isbedel garbuhu siman yihiin waa marka loo eego sida ay u surgo'an yihiin badda iyo dabaqyada cadceedu fallaarahoodu ay kaaga soo dusayaan neecawda badduna sidii uugaama roob kolbasanka dhan ula raacaysid hase yeeshee dowladda uu hogaaminayo Ismaaciil Cumar Geele oo surgin adag ku xidhay wixii goldoloola ah markhaatina ay u tahay sixir barar aad ka dareemaynin tan iyo madaxweynihii hore allaha u naxariistay Xasan Guuleed Abtidoon waxaana degan maciishada halkan waa caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti ee Djibouti ودانا خيارتيدا قيمة يقدرين تمودنا انتاسا يانكو سواف ميرينا وربحنتيني كوبنايد فضلنا دان نغو عصوبتا الله يا سبسكرايب نغا المامين حداد لا جوجتينا واد ku maasinta la joogista tan ee kulanti dambe khiyaar ay waxaan idin ku dhaafeynaa sidaas iyo amaana Allah